وفد ودري وزيرka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Salabaan Yuusuf Cali Koore oo hogaaminaya xildhibaan Hanad Xaashi Axmed iyo Mujaahid Faansiya ayaa gaaray dooxooyinka Gambadho ku habsaday ayaxaad u tiro badan waxaana goobta ayaa ka kicinay ciidamada Soomaaliland iyo dadka deegaankaasi waxaana wararka ka warbixiyay Taliye Maxamuud Boolo oo ciidamada goobtaasi ku sugnaa waxa halkan ku fadhiistay wax la yiraahdo ayax oo looran karo waa masiibooyinka ka mid yihiin waxaan saakan ku soo bilownay rasaas هون حوي ديانكي oo kacay xoolo dhaqatadii waxaweye ciidanka qaranka oo ka hawlgalay haddana waxaan soo gaaray wafti uu soo diray wasiirka warfaafintu waan soo gaaray iyaga indhahooda ku soo arkay hawlgalka meesha ka socdo iyo waxaweye yimi meesha jooga waxaan hadalka soo afmeeray xildhibaan Hanad iyo Mujaahid Faansiya oo kamid ah waftiga wasiirka halkan ku habsaday ayax koronkorra ah waxa loo oran karaa waa masiibo qaran waa wax ka tan weyn deegaanka oo dhan waxaan aad baaq u diranaa xukuumadda madaxweynaha golayaasha qaranka kulli waxaan leenahay waxay u baahan yihiin masiibo qaran in loo kala halin wasiirka beeraha gaar ahaan wasiirka deegaanka iyo durjoogta Shukri Baandare oo halka ka salaamano waxaan aad iyo aad ugu hanweynahay in arinta hadii la isu kaashado la soo daba jari karo ciidanka qaranka meesha uu tagnay oo wata korneel sarkaal Maxamuud Boole aad iyo aad baan u mahadinaynaa anagu waxaan ka soconay waftigii wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo dhaqanka iyo wacyigelinta isaga la soo diray indhaha iyaga ku aragnay meeshan looma kala halin reermiyi rasaastii waa maratay waxa loo baahan yahay gurmad rasaas shidaal waxaan soo gaarnay meesha meeyaga xaal kale salama meeshaas oo marka aanu marayna Gambadho noo sheegay inuu ku habsaday ay xoog li markaanu soo gaarnay Ilaahay baa noo keenay oo deegaankii iyo dadkii dhulkii daaqii wax walba ka dhameeyay waxa meeshan yaala waxa weeyaan arrin ku xoog weyn taliye boodle oo isagu ciidanka qayb todobaad ka mid ah ayaa ilaa saaka la dagaalamayay rasaas ku ridayay waa daawatay malaga inuu dhishikayaal yar dhacaya kaba waxa la sugayaa inaan u gurmano oo si ballaaran wasaaradda deegaanka iyo tabeeraha iyo dhammaanba shacabku ay iska kaashadaan iyo xukuumaddu ay iska kaashto oo ay xasi la saakicin lahaa dhulkani waxa weeye dhulkii xooluhu daaqi jireen waana ilaaha dhaqaalaha ugu muhiimsan dalkeena xooluhu gobolkana waa gobolada wuxuu ka mid yahay ugu xoolaha badan leh ee dekada laga dhoofiyo haddii xoolaha daaqu ka dhamaado oo bahalkaasi masiibada isku habsato waxa laga yaabaa inay xoolaha saameyn badan ku yeelato beerihiina wali ma gaadhin wali mu gaadhin beerihi laakiin iyaga lafteeda iminku ku socda waxaanu ku talagalnaa sidii aanu isaga kaashan lahayn wax uga wada qaban lahayn waxaad moodaa daruuro daruuraha ayuu hadhay markaas si degdega ayaanu insha Allah annaguna wixii aanu tari karnaa idinku soo gudbin doonaa taliye wixii kalena waanu gaarsiin doonaa xukuumadda iyo dawladda labadaba وفرحان محمد عيديد وركض في عالم جاسم نيوز